macallin Erik ten Hag ayaa labadii kulan ee ugu horeeyay horyaalka lagu soo dhaweeyay guuldarrooyin aad u xanuun badan intaas kadib se wax weyn ayaa isbedelay waxa aragnay United oo badisay 5 ka mid ah 6 kulan ee ciyaartay iyo United oo u muuqata koox ka duwan kooxdii aan naqaanay dhowrkii sano ee u dambeysay haddaba saaxiibayaal muuqaalkan waxaan ku falanqayn doonaa oo ku faahfaahin doonaa isbedelka Manchester United ku yimid iyo isbedelada waaweyn ee la taaban karo ee macallin ten Hag uu ku sameeyay kooxda Manchester United tan iyo imaanshihiisii السلام عليكم صاحبيال وعبد كافي عبد الله كسو دواada muuqaal kale channelka daawanaysid waa Cafe Sports hadii aad tahay qof ciyaaraha xiiseeyo fadlan subscribe-ka igu cimaamad oo igu dhiirigeli adiguna hel falanqeymihii iyo wararkii ugu dambeeyay ee kooxdaada iyo guud ahaan kubadda cagta waa hubaa inaydan maartan iyo jibi doonin channelkan hadda waa channel cusub wararka ciyaaraha iyo falanqeyntooda ayaan soo gelinaa waxaa hubaa in channelkan uu noqon doono maalin channelka ugu weyn ee ciyaaraha ka daawatid marka hadda aad nala joogtid fadlan karaabka igu cimaamad adiguna maxaa la yiraahdaa maniyo jibdoonta insha Allah muuqaalka saaxiibayaal saad ka soo aragtay muuqaalka qaybtiisa hore waxaan ku falanqeyn doonaa Manchester United iyo macallin ten Hag isbedelada uu ku sameeyo kooxda waxa ognahay Manchester United in sanadii la soo dhaafay ay ahayd kooxda lagu qoslo oo maaragtay cid walba ay rabto inay maaragtay ayaga ay la ciyaarto kooxaha yarka xitaa ay rabaan inay Manchester United la ciyaaraan oo dhibceeda ay ku tashanayaan sanadkan macallin ten Hag ayaa kooxda maartay macallin cusub looga dhigay horyaalka bilowgiisa ayuu shaqadiisa macnaha leeyahay bilowday waxa lagu soo dhaweeyay 2 kulan oo maartay xanuun badan runtii waxaan ognahay in macallin ten Hag oo style iyo qaab maartay lagu yaqaan oo leeyahay oo ay kula dheeli jiray Champions League iyo ugu qaraabo jiray United-na markay macallinkaas maxaa la yiraahdaa ay ka dooratay macallimiintii kale oo table-ka saaray sida Pochettino iyo Zidane iyo rag lamid ah runtii waxay ku doorteen waxay ahayd qaabka uu dheelo iyo maaragtay philosophy-giisa iyo shaxda uu dheelay qaabka uu dheelo kubadda cagta darteed ayaa lagu doortay marka waxa aad loo filayay in macallin ten Hag uu qaabkiisa shaxdiisa iyo maaragtay dhaqankiisa iyo philosophy-giisa iyo la yimaado Manchester United oo hore ka implement gareeyo waxaan ognahay in pre-season fiican oo maaragtay kooxda la qaatay inkastoo ciyaaryahanada cusub ee kooxda maaragtay oo ku soo daray aysan pre-season-ka badankooda aysan qayb ka ahayn marka United labadii kulan ee horyaalka lagu bilaabay Brighton iyo Brentford waxaan aragnay United oo maaragtay isku dayayso in qaabkii macallin ten Hag ay la qabsato oo macallin ten Hag maxaa leeyahay philosophy-giisa iyo qaabka uu dheelayay position-ka tirada badan kubadaha baasbaaska gadaal laga soo dhisayo iyo waxyaalahaas iyo maxaa leeyahay counter pressing waxa loo yaqaan in kubadda la ceeriyo isku dayay inay sameeyaan laakiin United labadaas kulan waa laga badiyay United labadaas kulan ilaa hadda kulamadii ugu badnaayay oo position-ka badan ugu badan ay keensato way laakiin saasay tahay waa kulamada laga badiyay horyaalka marka United labadaas kulan waa laga badiyay waxa muuqatay in United aysan diyaar u ahayn qaabka uu macallinku u rabo inuu u dheelaan oo ciyaaryahanada isu dhisnayn markii aad kubad gadaal ka soo dhisayid baas aad dheelaysid maxaa la build up fiican aad sameynaysid waxay u baahan tahay in ciyaaryahanada ay kalsooni leeyihiin ay kubadda ku dheeli karaan oo maaragtay cagtooda ay maaragtay ku kalsoon yihiin one touch ay dheeli karaan meesha u wadaan ay yaqaanaan marka Manchester United ciyaaryahadeedu qaabkaas dib maaragtay badan ay ka muteen labadaas kulan ayaa dhihi karaa inay macallinka warkiisa ay raacaan intaas kadib wax weyn ayaa isbedelay waxa aragnay United oo Liverpool aaday iyadoo maaragtay la yaaban yahay oo culuba maxaa la yiraahdaa taageerayaasha United ay leeyihiin kulankan hadii la ka badiyo waxa cid walba iska filaysa in kulankaas laga badi doono taasna runtii problem weyn ay tan ku noqon lahayd macallin cusub waaye maxaa la yiraahdaa wax dhici lahaa waa dareemi kartaa hadii saddexdii kulan oo ugu horeeyay horyaalka laga badiyo oo waliba Liverpool ay garaacdo gurigooda ku garaacdo marka kulankaas kulan weyn oo ahay waxaan aragnay United oo isbedel weyn la timid waxaan aragnay United oo kubadii maxaa la yiraahdaa spirit orod iyo tasati ciyaarnadu la yimaadeen iyo dadaal fara badan waxaan aragnay United oo counter attack dheelayso waxaan aragnay United oo kubadihii gadaal laga soo dhisayay iyo labadii kulan ugu horeeyay qasaaraha weyn oo ka dhashay iska badaysay oo ciyaarnadu isku qasbeen inay kubadda gadaal ka soo dhisaan hadii ay tuurid u baahan tahay tuuraayo markii baasas macaan la dheeli karana one touch dheelaayo marka intaas kadib macallinku wax weyn ayuu bedelay isbedelka uu macallin ten Hag sameeyana wuxuu yahay waa arkay in aysan qaabka oo rabo aysan u shaqeeyeen kadibna wuxuu dhahay warhaye hadii aan saan aysan wax ku soconayn inaan saan wax ku sii wadnaa intii uu dhihi lahay macnaha saanaan rabaa saan ku dheela waxaan ognahay in macallimiinta maaragtay caanka ah adduunka laga yaqaan sida Jose Mourinho kale in macallin walba uu leeyahay qaab uu dheelo markii uu koox tagana oo isku dayo inuu qaabkiisii oo kooxda ka dhaadhacsiyo ciyaarnadiisa uu tababarto haddaba waa maxay waxyaalaha waaweyn ee la taaban karo ee macallin ten Hag uu ka bedela Manchester United tan iyo imaanshihiisii midda ugu weyn haddaan soo qaadano waxaa dhihi karnaa waa saxiixyada United horta sanad walba waxay ahaa jirtay kooxda lacagta ugu badan suuqa gelisay hadii kooxda labaad noqon oo ciyaarna mar walba la soo saxiixay jirtay macallin cusub markuu yimaado mar walba way taageeri jirtay laakiin sanadkan waxa ka duwanaa waxay tahay United waxaan arki jirnay iyadoo ciyaarna la soo saxiixato waliba lacag qaali ka soo bixisa haddana aysan ciyaaryahanadaas saameyn yeelan oo kooxda aysan waxba ku soo kordhin sanadkan waxa ka duwanaa waxay tahay macallin ten Hag ciyaaryahanada soo gatay lacag badan oo suuqa galiyay
6 ciyaaryahan ayuu soo gatay laakiin guud ahaan ciyaaryahanada uu soo gatay marka laga reebo 2 nin oo ayaguna wali wax weyn laga sugaayo midna goalkeeperka oo maarata amaahda ku soo qaateen uu yahay midna uu yahay Casemiro ayaan wali kooxda aan macnaha aan ku soo bilaaban marka macallin Ten Hag saxiixyada oo sanadkan la soo saxiixday waxa waaye isbedel weyn ay kooxda ku keeneen waxaana la dhihi karaa dhammaantood ama intooda badan waxay horumar u yihiin ciyaaryahanadii hore kooxda u joogay waxaan aragnay Eriksen oo runtii waxa uu qaban karo maarata iyo sida kooxda muhiim ugu yahay hadda aragnay ilaa hadda hal kulan oo ku soo bilaaban anigu hadda ma xasuusto ama la nasiiyay marka waana sida uu muhiim ku yahay ku tusay marka waxaan ogeyn United inay qadka dhex dib ku qabtay oo ninkii Fred iyo McTominay ahay ay iska haysteen niman aan kubadda hore u qaadi karin maxaa la yiraahdaa difaaciyada aan kubadda ka soo qaadi karin horay aan weerarka aan qayb ka qaadi karin oo maanta dhan kubadda dhinacooda labada dhinac ka xigta hadba ku celcelina u baabaasa ayaa United dib ku qabtay sanadihii la soo dhaafay Eriksen isbedel weyn ayuu qadka dhex ku keenay waa nin maaragtay aqli badan waa nin kubadda cagta aad u yaqaan waa nin degan waa nin baasas qurux badan dheeli karo marka waa nin cajiiba United isbedel weyn ayuu qadka dhex ku keenay waxa uu soo kordhiyay kubaddo oo maaragtay breaking lines oo kooxda ka soo horjeeda structure-keeda iyo difaaciyadeeda maaragtay laga dhex dusinayo wuxuu soo kordhiyay deganaansho ayuu qadka dhexe iyo maaragtay difaaciyada u keenay marka cajiib sanadkan haduusan maaragtay gool walba kooxdu dhalis haduusan asagu caawin waa ninka labaad ee soo baasay marka caadi maahan la dhihi karaa waxaan aragnay Lisandro Martinez oo markii kooxdu ay la soo saxiixatay runtii dad badan oo maaragtay ay ku dhaleecayeen macalinka oo leeyahay ninkan Premier League ma dheeli karo waa nin gaaban maaragtay ciyaarnada weeraryanada dheerka Premier League ka dheela asagay target garayso doonaan ilaa haddana marka laga reebo labadii kulan oo maaragtay Maguire la dhalsiiyay intiisa kale waxa waaye bandhiga cajiib soo bandhigay United difaaciyeedu waxa la dhihi karaa labadaas kulan marka laga reebo aad u fiicnaa marka waxaan kaloo aragnay yarka Tyrone Malacia oo Luke Shaw qadka kala baxay waa nin maxaa la yiraahdaa asaguna degan oo markii hore la aadis la yiraana hore si fiican u aad yaqaano deganaansho uu ka muuqdo kalsooni ka muuqato spirit iyo dhiig uu soo kordhiyay difaaciisu fiican yahay inkastoo wali u baahan yahay in markii maaragtay weerarka xaqiisa la yiraahdo waxa horumar wali sameeyo laakiin difaaciisa shay kama taagno waxaa kaloo aragnay Anthony oo asagana wali hadda kooxda ku cusub oo gool qurux badan kulanka Arsenal dhaliyay marka macna Ten Hag waxa ugu weyn oo Manchester United sanadka ka bedelay wuxuu keensaday ciyaaryahanno oo yaqaano waxa ay ku fiican yihiin yaqaano ayaguna yaqaano waxa uu ka rabo oo kooxda maxaa la yiraahdaa horumar weyn ku sameeyay marka waxa labaad oo macna Ten Hag sameeyay sanadkan waxa la dhihi karaa wuxuu horumariyay ciyaaryahanadii hore kooxda u joogay sida hadda Dialogue kale iyo waxa aragnay Rashford oo formkiisa ku soo laabtay oo maaragtay gool dhalina wax caawinayo Sancho asagana sidoo kale waxa aragnay Varane oo fit ah oo kulamo badheelayo hadda kulamadii intii ugu dambeeyay Dialogue oo ah runtii ciyaaryahanka inta ugu badan ka faa'iiday macna Ten Hag isbedelkii kooxda ku dhacay oo iska ahay nin maaragtay la rabay in kooxda laga diro markii uu kooxda ku soo biiray maxaa la yiraahdaa xilliga Jose Mourinho ay ahayd marka nin wixii laga filayay maaragtay ku guul dareystay oo lacagta laga baxshay maaragtay lagu khasaarayo hayo in la iska diray kooxda rabto la iska gado waliba taageerayaal badan oo hadda oo United ah in aysan Manchester United sanadkan la soo saxiixan ciyaaryahan oo maxaa la yiraahdaa garabka midig oo weerarka oo difaac ka dheeli karo qaarkood aad ay uga niyadjabsanayeen maxaa yeelay Dalot kalsooniis kuma isa qabin laakiin waxaan aragnay Dalot oo isbedelay oo nin kale ah oo maxaa la yiraahdaa soo u difaacanayo spiritka iyo dhiiga iyo maxaa la yiraahdaa markii weerarka la aadayo kubadaha u basbaasayo marka runtii waxa la dhihi karaa macna Ten Hag imaanshihiisii ciyaaryahan badan oo kooxda hore u joogay ayaa ka faa'iiday taasna isaga ayaa ku amaanan markaan haddaan fiirino arinta kale oo macna Ten Hag oo Manchester United ka bedelay waxaa dhihi karaa waa difaaca United waxaan ogeyn in sanadii la soo dhaafay difaaca dib ku qabtay waxaan ogeyn nimankii Maguire iyo Lindelof oo waxa ay sameynayaan aan la aqoon oo goolal isaga shubayo oo kooxaha yarka oo ay si fudud gool uga dhalinayaan waxaan ognahay in Liverpool sanadkii hore horyaalka labadii kulan ay la ciyaareen ay 10 gool ay kaligeed ka dhalisay marka sanadkan runtii waxa moodaa in isbedel weyn uu difaaca ka muuqdo ninkan cusub oo Lisandro Martinez oo la keenay waa nin dhiig badan waa nin maxaa la yiraahdaa firfircoon waa inkastoo waa gaaban yahay waxa la leeyahay haddana wax maaragtay weakness ama maxaa la yiraahdaa oo dhibaato ah inuu qabo kama muuqato ilaa hadda waa nin kubadda ay lugtiisa ku fiican tahay oo markii kubadda weerarka la soo dhisayo gadaal laga soo dhisayo maxaa la yiraahdaa baasas fiican dheelayo waa nin maxaa la yiraahdaa waxa ognahay in Maguire iyo Lindelof raggi lahay taas laftii dib ku qabeen oo difaacna ay ku fiicneen markii weerar la aado oo kubadda gadaal laga soo dhisaana aysan ku fiicneen marka ninkan weerarkana waa uga fiican yahay difaacna waa uga fiican yahay waxaan ognahay asagana ninka la yiraahdo Varane oo sanadihii dambe asaguna soo kooxda ugu soo biiraba nin iska dhaawacan iska ay mar bijile iska ay Harry Maguire bench ugu jiray marka United macna Ten Hag labadii kulan ee horyaalka ciyaaray markii uu xaalka qiimeeyay
isbedel weyn ayuu difaaca ku sameeyay ayaa la dhihi karaa labada nin oo maxaa la yiraahdaa CB-ga iyo waliba labada garab oo Dalot oo show boss kala baxay iyo ninka la yiraahdo Malacia oo Wan-Bissaka boss kala baxay marka United runtii waxay u muuqataa sanadkan inaysan maaragtay goolal badan maaragtay aan laga dhalinayn waxaan ognahay hadda shantii kulan ugu dambeysay lixdii kulan ugu dambeysay ciyaartay waxaa laga dhaliyay kaliya 4 gool caadi ah laga dhaliyay iyo gool rigoora ah marka saasi taana kooxaha waaweyn ay la ciyaarto oo Liverpool iyo Arsenal ay ku jiraan marka United waxay u muuqataa haddii sanadkan ay guul gaarayso guushaas waxa ay ku dhisnaa doontaa difaaceeda ayaa la dhihi karaa nimankan hadda labada ama afarta dambe haddii ay isaan wada joogaan oo dhaawac soo dhaxgelin waxay u muuqataa inay yihiin meesha ugu muhiimsan ee United sanadkan ay guul haday gaarayso ay maaragtay ku gaari doonto markaan haddaan fiirino arrinta kale ee macallin Erik ten Hag oo ku soo kordhiyay Manchester United ama uu ka bedelay waa sida uu u handle gareeyay sheekada Cristiano Ronaldo sida ognahay Cristiano Ronaldo sanadkii hore Manchester United way ka daadsaneed laakiin wuxuu ahaa ciyaaryahanka kaliya oo dhaqaaqay waxaan ognahay inuu isu geys ahaan oo ku dhawaad 30 gool u dhaliyay horyaalka sanadkii hore 18 gool iyo goolal kale oo Champions League markii lagu daro ninka kaliya oo dhaqaaqay inuu yahay ayaan ognahay Ronaldo waa gooldaliyaha 10kii ama 12 sano u dambeysay waxa way kubadda cagta ugu fiicnaa waa marka taas shaki kama taagno laakiin taas price ay maxaa la yiraahdaa wadataa oo maxaa la yiraahdaa dhibkeeda ay wadataa faa'iido walba qasaaraheeda leedahay taas asagoo ah oo ciyaaryahan fiican ah haddana Ronaldo waa nin high personality ah waa nin maaragtay maxaa la yiraahdaa in aad bench geliso aan ka yeelin waa nin maxaa la yiraahdaa aan waxyaalaha hoose aan ku qancino ambitionkiisa oo sareeyo waa nin tartan ku jiro oo Messi iyo Real inuu iska celiyo rabo marka Ronaldo sanadkan United sanadkii hore markuu qiimeeyay xaalkeeda arkay inay soo isbedeleen arkay sanadkan inuu tago ayuu rabay inuu kooxda ka tago rabay waxaan ognahay inuu pre-seasonka uu ka qayb galin oo kooxaha raadsanayay marka inkastoo optionadiisu iska yaraayeen oo kooxii waaweynaayo Yurub ay laftooda maartay soo diideen haddana Ronaldo koox ma weyn lahayn ayaa la dhihi karaa inuu tago ayuu rabay sanadkan haddii uu tagin oo joogana runtii problem ayuu United ku ahaa ayaa la dhihi karaa joogitaankiisa maxaa yeelay Ronaldo hadduu bench ku jiro maxaa kuma qancay hadduu soo ku qancin oo dressing room oo soo qanacsanayna waxaan ognahay hal ciyaaryahan oo dressing room kaaga aan qanacsanayn ayaa kooxda dib ugu filan hadduu ciyaaryahanka Ronaldo yahana hadda warkeeda waxa way taas kuma sii jirto waxaan ognahay in Ronaldo oo maaragtay personality-giisa iyo media iyo attention-ka oo wato intuu la egyahay marka haddii uu Ronaldo kooxda ku jiro haddana uusan ku macnaheedu uusan ku farxsanayn saameynta ay leedahay waa wax aan la qiyaasi karin maxaa la yiraahdaa ama ciyaarnada ku yeelan karto marka sanadkan Ronaldo inuu tago rabay macallin Ten Hag waa arka xaalkiisa inuusan maaragtay kooxdu striker lama soo saxiixan oo nin lagu bedelay ma isa fasixi karin sidaas darteed marka in uu tago option ah meesha ma soo noolin macallin Ten Hag marka wuxuu ku qasbanaaday inuu ku qanciyo Ronaldo inuu joogo isla markaasna uu Ronaldo ku qanciyo inuu waliba bench galo inuu joogo maan xitaa inuu bench galo waxa ogay sanadkii hore markii xilligii professorka uu joogay iyo ninkii Fatalaha ay professorka isku sheegay uu joogay iyo in uu Ronaldo waxa arkaynay markii ciyaarta iyadoo 90 daqiiqo mar xitaa hadii la baxsho inuu caagadaha raatina oo sanka taaga oo dagaalamayo sanadkan waxa isma muuqdaan Ronaldo benchiga lagu soo bilaabay ilaa hadda kulankii hadda oo u dambeeyay Europa League iyo ay hal kulan kale lagu soo bilaabay saasi tahana wax dhibaato ka muuqato waxa muuqato in macallin Ten Hag oo helay xal oo Ronaldo ku heysanayo maxaa yeelay uu kama maarmo u baahan yahay isla markaasna oo maxaa la ku qancinayo in wixii uu soo dooro oo ku qanco marka si fiican ayuu arintaas u handle gareeyay ayaa la dhihi karaa waana ku amaanaya macallin Ten Hag isbedelo waaweyn oo la taabo kara ayuu sameeyay laakiin United meeshii lagu yaqaanay ama ay rabtay geedi fog ay u jirtaa ayaa la dhihi karaa wali waxa jirta meelo badan oo u baahan yahay inuu ka hormariyo kooxda waxaana kamid ah in uu kooxda ku soo kordhiyo ama uu hormariyo dhanka weerarka iyo gool dhalinta United ilaa hadda kulamadii ay ciyaaraha weyn ama ciyaaraha fiican soo bandhigtay goolasha badan ay dhalisay waa kulamadii ay kooxaha waaweyn la dheeltay taasna waxa sabab u ah in style-ka ay dheelaysay oo ku dhisnaa counter attack ay kaga faa'iideysato kooxaha waaweyn maadaama kooxaha waaweyn ay yihiin kooxo ku soo weerarayo kubaddana ka haysanaya isla markaasna fursado ku siinaya inay counter attack ku sameeysid laakiin marka ay la dheelayaan kooxaha maaragtay yararka ah oo kubadda difaacda oo gadaal fadhiista oo maxaa la yiraahdaa aan space counter attack laga helayn United wali waxa muuqata inay dhib ku qabto inay gool dhaliso waxaan ognahay in kulamadii hadda ay ku badisay hal gool iyo laba gool intooda badan marka laga reebo kulanka Arsenal marka macallin Ten Hag wali shaqo badan ayaa u taala hawshiisu ma dhaw laakiin isbedelada ilaa hadda uu sameeyay taageerayaasha United runtii aad ay ugu qanceen waxaana muuqata in kooxda uu ku wado isbedel inkastoo yahay wax waqti qaadan doona in isbedelkaas la dareemo haddaba hadda taageero Manchester United ama taageero kooxaha kale ee Premier League daawatida United maxay kula tahay in macallin Ten Hag oo kooxda ka bedelay fikirkaaga nagu la wadaag qaybta comment-iga waxaan jeclahay marwalba inaad fikirkiina igu la wadaagtaan qaybta comment halkaas ayaan barnaamijkan ku soo koobayaa intaan muuqaalka xigo isku arki doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaan nagu cusub tahana fadlan saaxiib subscribe ku cimaamad channelka anigana igu dhiirigeli
adiguna hubaal man ii jib doontid oo waxaa heli doontaa falanqayn iyo warar kan lamid ah oo aad ku qanci doontid mahadsanid